Yeah, فرقزي my brother maxaa haysaa caafimaad ka waran. للبلال إنه ده مقلنيه Gac ka dheh filkaas gab ka dheh brother. Ninka leel bilaal lama dhehe. Leel 2012 BBC dhex fadhiyay brother. You joking? Yeah. dadaa wuxuu ku dhihi jireen liil bilaal wallaahi reer waqooyiga qaar magacaaga masixi jireen liil bilaal waxaa ka xumahay maanta inaad sugi weyso waxaad ii qabtay anoo rag la dagaalamaya gadaal inaa ii qaniinto. waxaa markii u horreysay wadajir uga soo muuqday muuqaal live ah liil baliil iyo wisbi kadib dagaalkii ay la galeen kinsikey balse live-kan ay ku wada jireen ayay si wadajir ah ugu karbaasheen kinsikey. haddaba daawadayaal muuqaalada sirta iyo macluumaad aadan ka ogeen micnaha heesta qabsatay social media Soomaalida ee One More Night uu qaaday fanaanka liil baliil ayaan idinkula wadaagi doonaa. liil baliil ayaana sharaxay micnaha uu ula jeeday heestaas balse intaanan muuqaaladaas idinla wadaagin iyo macluumahaas fadlan marka hore muuqaalkan like saara si uu saaxiibo fara badan u gaaro janaalkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. mahadsanidin. dhowaan ayay ahayd markii ay isku dhaceen liil baliil iyo kinsikey kadib markii uu la saftay liil baliil wisbi iyo shiino celay oo ay ishayeen kinsikey taas oo keentay in sikey dhankiisu uu iska caabin sameeyey asagoona sheegay liil baliil in Soomaalidu uu isagu baray ka horna magaciisa ay qaldi jireen una aqoon jireen liil bilaal. waa kana hayla daawada muuqaalkaas kinsikey dadaa wuxuu ku dhihi jireen liil bilaal wallaahi reer waqooyiga qaar magacaaga masixi jireen liil bilaal waxaa ka xumahay maanta inaad sugi weyso waxaad ii qabtay anoo rag la dagaalamaya gadaal inaa ii qaniinto. haddaba waxaa markaan jawaab culus ka bixiyey liil baliil asagoona sheegay in 2012 uu BBC dhex fadhiyey isagoona kala jeeda in xilligaas waraysi ay la yeelatay BBC-da. waa kana hayla daawada muuqaalka liil baliil iyo weliba wisbi ay jawaabta kulul ku siiyeen kinsikey. Yeah. فرقزي My brother maxaa haysaa caafimaad ka waran. للبلال إنه ده مقلنيه Gac ka dheh filkaas gab ka dheh brother. Ninka leel bilaal lama dhehe. Leel 2012 BBC dhex fadhiyay brother. You joking? Yeah. فرقزي ما أنا كوتا إنه أنا قاعد هنا تاع Abu maalinta iita maxaa sagaalkii habeenimo waay. So 15 waaye. Anaga xaggeena waxa waaye mugdiga xogaa uu naga maqan yahay taransada soo yahay hadda imaana laakiin. Yeah. Okay وأنا والله Yo, firi Wizio waxa ku soo diraa dadka ku jiraan dhan hadda taan waxa codsanaya adiga waxa waaye part 2 collaboration-ka codsanayaan marka waxa ku soo diraa hadda ogtahay hadda waa ku tuso wax dhan ahayo hal xabal lagu soo tuuraa inay iga waabisida raba dadka niyo tell them who is being the came on no check content kid ka dhala raba ma xastido content kid ka dhala content kid waxa badan ka hor remote also saarna jirtay I don't know if you remember yeah dalla wa ku salaama dalla wallahi bilaa dad badan caawisa brother I'm proud of you bro keep going faiz oo raba ma iga deysir adigana oo raba wallahi saa ku baad cilnaa waa daalide so guys maxay isleedihiin Wizbi iyo liil baliil next project ay wada sameynayaan wala yaabaa ku dhaa brother no raadi anniversary-geeda sameynayno saxaabo sug beatka raadi waxa ku sameynaa remake ma fahanti waa soo remake gareena markaas soo remake gareeyo waxaan suubinaynaa I think the next week studio session aan leeyahay next week leeyahay studio ku jira dad oo special ah ii balansan insha Allah taala ma ka hor dhacay insha Allah waa arkaysin so then waxa suubinaa video beatkas waxa ku sameynaa remake faasaskeena inaan wax yar ka bedelno waa si remix u noqoto and then let's drop that shit bro عادي man it's hard والله Allah inshallah ديار وانيا just give it one more night for almost like a week then we can do the rest of it yeah one more night bro anyways
balaa aragta leh nin walba surwaalka wuxuu ii soo gashay kal mee kashooda soo gashtaan maxay kal u soo gelinayaan this niggas ma kaftamayo TikTok ciyaalka jooga caadi maaha brother no ka qeydin wala heesta fasiraad kale ii siiyaan heesta dhanba nooc kale loo jeediyay waxaana ka hadlina loo jeediyay you know when I was writing the song ma ka fikirin waxaasani ولا معنانا قصب واحد ولا معنانا هوشوده قبسنايان شكلها la isku heesta fahmi la ahay kadaaya abtisaas maahan heesta jaceyl waaye xabadan waxa dhahay halko habeen kale isii laakiin isii waxa dhahooyo waxa ku fikiraysiin maahan inuu qoftan way ii sheekaystay macmacaanka ahayd quruxleeyda ahayd seewaadi waxay ahayd adii cambe ahayd wax dhan ahayd kuleelka dhan ahayd so waa la kulmay waa la sheekaystay markaan baxayna way mashquushay abti waxa dhaha markano macaanay adiga sidii habeenkii hore maaragtay sheekada dhex martay camal ha ee beesno ku celi midda kale ani waxa ka heesaa waxaysan dadka ka heesin markaas dhahaayana waxa ka wada fanaaniinta kale wax aysan ka heesin ani ka heesaa for example waxa taagan aniga hablahan iga badano ayaka hadba dhinac ka gala ayaka hadba dhinac ka amaana marna waa amaana marna waxa leeyahay waxyaabaha dadka ka gaabsadaan ay afkooda soo qabaneen ana sheegay abtino hadduu hooyada ay nafaqada kugu roonaatay alamiitada aabasatay jimka aabasatay laakiin se Instagram marka waxa soo dhigto adigoo meelaha gobol duubaysa cidna is fiirneen ana fiirinaya ana sheegaya ana waxa leeyahay de meeshan kuleel waaye ama qabow waaye insha Allah taala so geeda iyo roob da'ay iyo faras ordeysa iyo ubax iyo waxaas laga heeso mar waa laga tagay is 2021 lagu jira abtino hadii gabadha gym ee aado makeupkeeda dhacaya wax walba dhacaya wala sheega brother haddaba daawade fahankaada heestan haddaad daawatay iyo sida uu ula jeeday ee uu u sharaxay lil baliil maxaa farqiga u dhaxeeya adinka ayaan idin daayay jawaabta halkaas ayaana jeclahay inaan ku soo afmeero muuqaalkeenni intaan muuqaalka xiga ku kulmayno sidaa iyo nabadii my brother maxaa haysan caafimaadka waran lil bilaal inuu dhaha maqlinayo gac ka dhefay gab ka brother inka lil bilaal lama dhahe lil 2012 labadii BBC dhex fadhiyay brother you joking